laba lugoodlahan ay Soomaalidu sida fudud u isticmaasho ee loo yaqaan baaskiilku waxa uu ka mid yahay waxyaalaha caalamka looga isticmaalo siyaabaha kala duwan iyadoo lagu galo qaar ka mid ah tartamada iyo safarada dhaadheer markaas aad Soomaaliya joogto waxay ahayd arin adag maadaama ay suuragal ka tahay dhul amni ahaan aad u wanaagsan si weyn loo dayactiray marinadiisa waxaase arrinkaas waxba kama jiraan ku tilmaamay Naasir Gaas kaas oo socodkiisan hadda ka soo luqaaday magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya kadib 25 caana maal oo jidka ku soo jiray waxa uu maanta soo gaaray halkii ugu dambeysay safarkiisa oo ahayd magaalo xeebeed Boosaaso waxa uu Naasir masaafo ahaan soo jaray 1500 oo kiiloomitir haddaba si aan wax uga ogaano sheekada Naasir ayaan uga hortagnay meel u dhow deegaanka laag ee duleedka magaalada Boosaaso waxaana aan wax ka weydiinay waxyaalaha ku kalifay arrinkan waxa uu kala kulmay dhulkii dheeraa oo soo maray iyo dareenkiisa ku aadan Naasir Gaas ku soo dhaw TV-ga Sahal Cable TV bal ugu horeyn xogtaada inaar waa mahadsan tahay Sahalkii TV Cable TV iyo crew-gooda garanaysa baada media waan salaamayaa waa mahadsantihiin aad bay farx galinaysaa inaad maaragtay ugu qaabishaan maaragtay saa sheegtay safar dheer oo 25 cisho qaatay maanta ku 25 ah waxaan isdhahay bil laakiin waxaad moodaa inaan maaragtay ka soo yar dheereeyay dhanna waa ka faraxsanahay oo waxaan gaaray destination-kayga final destination-ka dhanna xoogaa waa ka yar xumahay in maaragtay maxaan ku dhahaa safarkii iyo dalbaradkii iyo maaragtay wixii aan ku soo jiray maaragtay inay gabagabayeen ay iga dhamaanayaan marka labadaas maaragtay dareen ayaan u dhaxeeyaa runtii markii qof kastii uu arko uu maqlo waxa weeye Naasir Gaas intaas uu safar soo ahaa baaskiil buu ku soo maray waa arin runtii waxa weeye dareen gooni sameynaysa dhulka aad soo martay haday noqon lahayd dhinaca nabadda iyo haday noqon lahayd dhinaca waxa weeye quruxda ama dalxiiska maxaad ku soo aragtay amazing wax laga sheekeyn kara maaha wallahi 25 cisho ayaan maaragtay wadanka from Jigjiga Karamadha Buurta ilaa bartan aan taaganahay aan ka soo gooshay wax intaasoo toga qarar buuro magaalooyin tuulooyin degmooyin waxaas oo aan soo maray wallahi yani wadanka يعني sidaan ka aaminsanaa markii hore iyo waxa aan indhayga ku arkay waa kala duwan yihiin markaan soo baxay dadka qurbaha jooga ama qurbaha ku raagay qalad bay ka fahansan yihiin laana media reer galbeedka ayaa waxay ku celceliyaan been oo wadanka ay ka sheegaan oo leeyahay waa meel bahal galeen ah meel aan lagu noolaan karin meel dadkoodu yihiin maganaysa horror ma fahmaysa marka waxa dhacday dadkii Soomaalida nafkooda ay ku raagay qurbaha in ay nafkooda taa aaminaan beenta hadii lagu celceliyo run bay u ekaataa marka ciyaalka ku dhashay meesha lama yaabayo laakiin dad weyn waxa arkaysa aaminsan oo markaan soo baxay isku day inay maaragtay niyad jabiyaan oo maxaa ka doonaysaa meesha waryaan lagu qalan warlinta xabsiga ku cabin war all those negative marka maanta waxaan proof garay 25 days oo aan wadada ku soo jiray wax aanahay biyaha ila daba orda mooyaan iyo waxay soo dhaweeyeen mooyaan inaan arag wax dhibaato ah oo wadankuna nabad yahay okay muxuu yahay ujeedkaaga ugu weynaa ee safarkan waxa weeye kugu kalifay markii hore inaad waxa weeye intaan aad baaskiil waa wajiye badan yahay horta ama hobby cyclist garanaysa second thing waxay ahayd garanaysa in aan dalkii soo barto tan saddexaadna waxay arintan hadda aan ku sheegay inaan caalamka tusiyo iyo qaasatan Soomaalida qurbaha ku nool in wadanku nabad yahay wadankan u baahan yahay adoo mahadsan tahay ma jira intii aad soo martay wax aad si gaar ah ula yaabtay ama si gaar ah wax way ku xiisa galiyo aad nala wadaagayso waa fara badan wax laga sheekeyn karo maaha waxyaabaha wadada ku soo maray waxyaabaha ka mid ah isku intaasagalinay dadka Soomaaliyeed waa dad hadal ku noolaa dad fani ah dad garanaysa laab furan garanaysa hadaan ku aqoon hatta sidii 100 sano ku yaqaanin oo kale dad xiran ma ahan ma fahmaysaa marka sida dhulku uu kala duwan yahay deegaanada iyo dadka garanaysa oo kale dabeecad duwan yihiin waxyaabo laga sheekeyn karo maaha mar baan isku soo ururin doonaa inta uu Naasir wadada ku jiray waxa uu la kulmayay dadyow kala duwan kuwaas oo xiiseynaya inay taswiira la galaan sidoo kalena ay shucuubtooda la wadaagaan Naasir waxana sidoo kale aanu laamiga kula kulanay qaar ka mid ah dareewalada isaga goosha magaalooyinka waaweyn kuwaas oo marar kala duwan Naasir ku dhaafay laamiga iyagoona aan wax ka weydiinay shucuubtooda ku aadan arrintan muddo 5 triiba waxaan ku soo dhaafay wadada waxaan ku dhaafay barbarasheeda waan soo noqday waxaan ku soo dhaafay hadana hudisasheeda waan noqday waxaan ku dhaafay diyaaradda la sacaanood
waan soo noqday meelaha dhaxantan ku dhaaf meesha garan maayo maanta halkan baan ku soo mar laba aheed nin kale waxa ku haray garow ku haray marka shan mar baad leeyahay Soomaa shan jeer baan ku sii dhaaf soo dhaaf it's not going to be 6 time anoo Hargeysa oo baxaa safarkii Yasmin group wata oo ma santa gacali ma hadda waa gabagabadii adiga inta dhaafaysay wadada ku sii arkaysay dareen nooca bay ku sameeynaysaa nima labanan baa ahaayeen iska dalxiisay soconaya maalin baa dabcan aan la hadlo ima istaagin kale way soo dhaafeen Hong Kong garaacay waan arkay niman kale safar ku jiro wadada dheer muddo meel dheer baan dhowr meelood kala duwan baan ku soo arkay aad waxaan tahniyeenaynaa nimanka walaalaha oo masaafada 3,000 kilomitir ilaa Jigjiga ku soo socday baaskiilka waxaan ka midnahay taraaglayda deegaanada Puntland ka shaqeeya ninkaas waxaan dhaafay muddo ilaa iyo 10 jeer ka badan baan dhaafay oo aan mar walba wax ku dhaafay dariiqa isoo maraya marka waxaan leenahay insha Allah dadka qurba joogta ogaada in deegaanadu isku furan yihiin min Jigjiga ilaa iyo Boosaaso in lagu maro maanta afaafka hore ee Boosaaso aan taaganahay marka waa mahad Ilaahay weeye waxaan ku soo dhawaada nimankaas oo aad baan u dhiirigelinaynaa insha Allah waana mahadsan yihiin dadka oo insha Allah qurbaha joogana waxaan ugu cadeynaynaa inaan dhulka badan iyo kala xixil farbadna oo sajirin waana insha Allah waana mahadsan Cabdi Rasaaq Dhigay Libax Sahalka TV Boosaaso